mahadsanid Ibraahim Maxamuud Jaamac madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa maanta si rasmi ah uga furay garoonka Lamsey Stadium ee magaalada Burco tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland taasoo ciyaartii ugu horeysay ay maanta fooda isku dareen xulalka ka socday Togdheer iyo Maroodijeex waxaana xaflad ballaaran loo sameeyay furitaanka tartankan ciyaarta ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waxaanu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in 4 sano kadib uu tartankan qabsoomay isla markaasna uu mahadnaq ballaaran u soo shirkadaha isgaarsiinta iyo cid kasta oo gacan weyn ka geysatay qabsoomidda tartankani salaan kadib waxa maanta dhammaanteen farxad inoo ah in halkan aynu ka furno ciyaarihii gobolada Soomaaliland oo muddo 4 sano la qabanin in maanta loo soo raqasheen ku qabanno gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan golaha wasiirada oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda ciyaaraha wasiirka wasaaradda madaxtooyada gudoomiyaha gobolka Togdheer afayeenka madaxtooyada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan ciyaarta galabta dhex mareysay gobolada Maroodijeex iyo Togdheer oo ahayd ciyaartii furitaanka ay iyadoo ahayd ciyaar si heersare ah loo soo agaasimay waxaana ka hor intii aan ciyaartaasi bilaabmin halkaasi lagu soo bandhigay fantasiyo iyo maharajaano ka turjumaya gobolada taasoo dhammaanba gobolada ka qayb galaya tartankan ee ay bulshada hortooda soo mareen isla markaasna ay soo bandhigeen dhoolatusyo waxaana dhammaanba goboladani intooda badan hogaaminayay maayirada iyo gudoomiyaasha gobolada tartankani ka qayb galaya ciyaartani galabta dhex martay labada gobol ee Maroodijeex iyo Togdheer ayaa ahayd ciyaar aad u kulul isla markaana soo jiidatay indhaha dadka waxaana isla qaybtii hore ciyaartaasi gool ku hormaray xulka gobolka Maroodijeex taasi oo qaybtii dambe ee ciyaartana xulka ka socday gobolka Togdheer ay keeneen goolkii barbardhaca ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan ay ku soo gabagabowday barbardhac hal gool iyo hal goola markii ciyaartaasi dhamaatay ayaa tababaraha gobolka Togdheer Master Domber iyo qaar ka tirsan ciyaaryahanada ka kala tirsan gobolada Maroodijeex iyo Togdheer ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ciyaartani ay galabta ku ciyaareen garoonka Lamsey Stadium ee magaalada Burco dambeyntiina ciyaartani ku soo gabagabowday barbardhaca ee dhex mareysay gobolada Maroodijeex iyo Togdheer oo iyadoo ahayd ciyaarta furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa iyadoo ahayd mid hordhaca waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay ciyaari doonaan gobolada kale ee tartankani ka qayb galaya iyadoo labada gobol ee galabta ciyaarina ay ku jiraan groupka ama hormada koowaad ee tartankani